أصحاب قالقة وحيد الله الله ونزان ودا وعنو معمامي يحيى أصحابي وحا يقول عضي أرك اللي يدلي وحاواي ما دام أن عدالة إيه حق أكالي أو أنا كهالي رد جرتو شرب بوي داغ درجي لوجيستي وحا عضي maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlayna shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar busti aqoon ab u lahaa waxa dhacday in la yiraahdo brother waxa rabaa inaan kula hadlo ana oo kulkulba ana kula hadlo kala hadla arrinka sharb boy iyo waxyaabo ku saabsan waxay brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxa dhacday dhalinyartii inaa u tago markaan u tago inay gaari i gashtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna eelabad waxay aniga baabuurka ku sii jiro waxa liigu kor waxay dhig yiraahdo axbarshiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna aniga waxa siri hadii aad gabatid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Ahmed Rashid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doorida wato iyo rag biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mar ku jiri waxa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street Al-Hayat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraadiyo zuwan haysana 8 milyan aan nahnay hadduu arrinka isku bedelay yaa waa meel dagaal iyo qadiyad iyo qabiil la isku balansaday waay marka afaaro noocaas oo kale inaan galo aniga shakhsiyadayda iyo dignitygayga iyo sharaftayda oo ay Soomaalinimo ugu weyn tahay in afaaro nooca galo xaq u maliyani mana ka hadlaay mana u qalmo teeda kale arrinka shukubaba walaalkayga Allah caafiyan leh laakiin Soomaaliya waxa idin sheegaa meel ho u baahan iyo hil u baahan hadal wax ma ka taro ruuxa walaalkeena ah duco u baahan yahay boogtiisa in loo dhayo u baahan yahay in la daaweeyo u baahan yahay in wax loo qabto u baahan yahay hadal wax ma u taray waayo wixii hadal asaaba hadlay wixii hadal asoo dhiigu ku da'ay asaga ba hadlay yani hadalkiisa film story lagu soo celinay sheeko lagu soo celinay male qof walba uu maqlay qof walba uu og yahay asaga hadlay si qalbiyana u hadlay dhibkiisa asaga sheegtay laakiin meel ho iyo hiilo u baahan hadal wax ma ka taro hadalku asaga dhahay intaan soo qaato yaa dad wallahi YouTube ku waxaan ku arkay shukbaab markay muuqaalkiisa fiirsanay oo inaan iska raadina waan la khoslo adeedi oo